howlgalkan oo ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa xasilinta ee ka howlgala degmada Doolow ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada Xariir Tuur, Baba, Bohol iyo deegaano kale. dagaalkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay deegaanadaasi ka bilaabeen in ay xoolo baad ah ay ka qaadaan dadka xoolo dhaqatada ee halkaasi degan. ciidamadan oo uu hogaaminayay taliyaha ciidamada ammaanka ee degmada Doolow Cabdullaahi Cumar ayaa u suura gashay in weerar toos ah ay ku qaadaan maleeshiyada Al-Shabaab oo ku howlanaa qaadista xoolo ay ku sheegeen in ay yihiin zakada, balse xiriir ay dadka xoolo dhaqatada deegaanadaasi ku nool ay la soo sameeyeen taliyaha ayaa u suura gashay in uu weerarkani dhaco. maleeshiyada kooxda Al-Shabaab oo caadaysatay dhaca hantida ummadda Soomaaliyeed ayaa isaga cararay goobahani. taliyaha ciidamada ammaanka ee degmada Doolow Cabdullaahi Cumar oo hogaaminayay howlgalkan ayaa sheegay in ay jabiyeen kooxda Al-Shabaab ayna ka carareen deegaanada ay dadka ku dhibaateynayeen, dhankoodana uusan dagaalkan wax khasaaraha uusan ka soo gaarin.